dabkani xooggan ayaa saaka ka kacay xaafadda Istanbul oo ah goob ay ku nool yihiin dad danyaro oo barakacayaal ah kuna taala degmada Axmed Macalin Haaruun ee bariga magaalada Hargeysa. dabkani oo ahaa mid aad u xooggan ayaa waxaa ka howlgalay bakhtiintiisa ciidamada dabdamiska ee caasimadda Hargeysa isla markaasina ku guuleystay inay bakhtiyaan dabkaasi oo aan u soo gudbin guryaha kale ee goobtaasi ka agdhawaa. dhinacoodana ciidamada ammaanka oo uu horkacayo laba xidigle Khadar taliyaha saldhigga Sheekh Nuur ayaa goobtaasi gaadhay iyaga oo sugaya ammaanka intii ay ciidamada dabdamisku ay ku howlanaayeen bakhdiinta dabkaasi isla markaasina goobtaasi ay isugu yimaadeen dadweyne aad u fara badan oo ku soo xoomay. waxaana markii daminta dabkaasi ay soo dhamaatay warbaahinta la hadlay garyaqaan Maxamed Cabdilaahi Geeljire gudoomiyaha degmada Macalin Haaruun iyo taliyaha ciidamada dabdamiska sareeye guuto Axmed Maxamed Sawaaxili faahfaahin ka bixiyay dabka goobtani ka kacay. barakacayaasha Istanbul 2 oo ku yaala degmada Axmed Macalin Haaruun ee magaalada Hargeysa ayaa saaka waa bariga hore dab ayaa qabsaday. runtii wax khasaaro oo maaragtay nafi ma jirto iyo wax dhaawac toona ilaahay mahadi aad iyo aadna waan uga xunnahay dadka dhibaataysan ee maaragtay masiibada saaka maaragtay ilaahay u soo hooyay. shantii subaxnimo waxaan noo soo sheegay qaxootiga amba barakacayaasha Istanbul inuu dab weyn ka kacay. markii aanu nimid waxaan aragnay inuu dabku aad u weyn yahay. waxa aad ugu darnaa dabaysha oo xoogeedu ahaa 60 knot. xooga dabaysha 60 knot buu ahaa. 60 knotna waa meesha lagu baabay oo kale ayuu noqdaa. markaanu nimid aan aragnay dabka xoogeeda waxaanu sameynay waxa la yiraahdo full turn out waxa weeyaan ciidanka Hargeysa meel ay ka joogaan waa in la isugu yimaada baabuur haday noqoto haday ciidan noqoto hatta cidda fasax ku maqan ee maqla si fiican maxaa la yiraahdaa in inaga soo qayb galaan. ilaahay mahadiye 120 buul baa gubtay hase haatee intaanu seef gareynay 2,000 ayaa uu ka badan yahay. alxamdulillah waxa laaliyo wax dhibaato bilaadmiga mu jirin. waxaan kula dagaalanay 12 gaari oo dabdamisa 80 maxaa ciidana si fiican baan uga soo gaarnay. ilaahay mahadale dabayshu xoog bahayd imikana waa arkaysan soo dhacayo 60 knot buu ahaa. 60 knotna magaalooyin dhan buu baabiya. waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa ciidanka dabdamiska ee soo gurmaday si fiican u shaqeeyay. waa markii labaad ee dab noocani oo kala uu ka kaco xaafadani barakacayaasha Istanbul.